السلام عليكم كلنتي وعن wanaagsan meel kasta aan ku joogtaan soo dhawaada soo ku aragtaan muuqaalkan wuxuu ku turjumayaa siyaabaha loo daweeyo ama loo daryeelo ciridka waxa jira dhowr hab oo la soo jeediyay oo yarana waxay yihiin ilaa 4 hab oo kala duwan habka koowaad wuxuu yahay in qofku uu ku dadaalo cadiga isagoo isticmaalaya cadi markaa aad u jilicsan habka sidoo kale waxyaabaha la soo jeediyay ku jira waxa kamid ah in qofku adeegsado ama isticmaalo dunta ilka taasoo idin ka saar saaxiibaha raadiga haddii markaa ay ku waran ciridka sameyn kara xayntaabka ciridka kuwaasoo markaa ugu dambeyn iyaguna keeni kara in qofku yeesho cirid xanuun iyo sidoo kale cirid dhiig waxa kale oo la xuso oo kamid ah qofku inuu adeegsado ama ku lulubdo biyo diiran oo ku daray milix ama cusbo qodobka labaad waa qofka loo soo jeedinaya inuu si dabiici ah isaga daweeyo waxyaabaha la xuso waxa kamid ah biyo diiran oo lagu daray milix ama cusbo si markaa hoos loogu dhigo xanuunka iyo sidoo kale cirid dhiig waxa kale isla qodobka kamid ah qofku inuu adeegsado ama isticmaalo malab saafi oo markaa ah malabka saxda ah waxa kale oo qofka loo soo jeedinaya inuu ku lulubdo waxa loo yaqaano saliid saytuun waxa kale oo qofku ku luqluqan kara waxa loo yaqaano tea tree oil idina wanaagsan in ciridka nadiifiso isla markaana ay hoos u dhigto caabuqa iyo sidoo kale bararka ciridka qodobka saddexaad waxa loo yaqaano dawooyinka kiimikada waxaana la xusay waxa loo yaqaano mouthwash ama sidoo kale dawooyinka qofku ku luqluqdo isla markaana nadiifiya afka ay hoos u dhiga waxyaabaha keeni kara qofka markaa ciridkiisu u bararama oo xanuuna waxaana kamid ah sidoo kale dawooyinkaasi kuwa loo yaqaano chlorhexidine oo markaa muuqaalkeeda halkan ku aragtaan ugu dambeyntii qodobka afraad wuxuu yahay in qofku la xiriiro dhakhtar si markaas qoto dheer loo ogaado waxyaabaha keenaya cirid xanuunka ama sidoo kale cirid dhiigga tan kula dambe nabadgelyo.